iyo danta shisheeyaha la isbarbar socodsi marmarka qaarna dadka danta shisheeyaha la soo hormariyo laakiin annagu dawlad ahaan dhexdhexaad kama nihin dawladnimada iyo madax bannaanida dalkeenna ilaalinta dalka diinta iyo dastuurka ayaanu u dhaaran sidaa darteed annagoo ixtiraamayna deris wanaagga iyo madax bannaanida waddamada nala jaarka ah haddana marnaba ma oggolaanayno in lagu soo xadgudbo madax bannaanida qarannimada iyo jiritaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya shirka jaraa'id waxaan markaa u qabannay inaannu fariin arrintaa ku saabsan halkan ka tiro oo ay ugu horrayso kow arrinta Kenya sida aad la wada socotaan 29 Noofembar waxa aan wada tashi ugu yeernay safiirkeennii inoo joogay Kenya sidoo kalena waxaan u sheegnay safiirka Kenya oo fadhiya Soomaaliya inuu la tashi ugu laabto dalkiisii waxaan rabnaa inaan shacabka Soomaaliyeed u sheegno sababtan u kaliftay tallaabada diblomaasiyadeed ee aanu qaadnay sidaan hore u soo sheegay dowladda federaalka Soomaaliya waxay ku shaqaysaa dareenka iyo rabitaanka shacabka Soomaaliyeed waxaanay u taagan tahay difaaca iyo ilaalinta madax bannaanida dalka sidoo kale waxay dowraysaa xeerarka caalamiga ah iyo wada noolaanshaha shucuubta caalamka Kenya waxaanu haynaa ixtiraam qadarin derisnimo iyo inaanu ahaano dawlad labadaba ku wada nool mutual interest dhinacayaga markasta waanu dhowrnaa arrimahaas asaasiga laakiin Kenya kama muuqato derisnimo wanaag waxa ka muuqda dama socda riyo maalmeed aan munaasib ahayn iyo qarab ku dhisan dhalanteed oo ay ku hunguraynayso dhulka iyo badda Soomaaliya tusaale ahaan Kenya waxaanu in badan kala shaqaynaynay arrimaha amniga ee labada dal waxaanu qaadanay falsafad ah cadowga dariskaagu waa cadowgaaga laakiin Kenya waxay dooratay oo jeclaatay inay u dhaqanto sida rajiimkii Tigreega ee faragelinta badnaa kaas oo halkan ku dambeeyay ka wada warqad sidoo kale ciidamada Kenya Kenya Defence Force kale KDF waxay ka mid yihiin ciidamada nabad ilaalinta Afrika ee Soomaaliya AMISOM ciidamadaasi waxay ku joogaan oggolaanshaha dawladda Soomaaliya iyo awoodsiinta Security Council ka golaha ammaanka qaramada midoobay dhinacayaga ciidamadaas sida ciidamada kale AMISOM taasi kama jirto marar dhowr ah bay KDF ama Kenya Defence Force ka baxeen goobo lagu ogaa iyagoo aan kala tashan dawladda Soomaaliya iyo hoggaanka sare AMISOM weliba haddaan arrintaa faahfaahin idinka siiyo waxay mar dhexdaas ka baxeen Kenya Defence Force laba goobood oo aad iyo aad u istiraatiiji ah oo kala ah waxbaxdoon iyo busaar iyagoo aan cidna ka talagelin bixistaas tala la'aaneed yaani cidna u sheegin inay baxayaan shacabka Soomaaliyeed ku nool gobolka Gadow dib badan baa ka soo gaaray intaasoo kaliya ma hadhin sidoo kale Kenya waxay faragelin joogto ah ku haysaa maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland oo ay madaxdiisa ku qasabto arrimo ka soo horjeeda oo ka dhan ah danta iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed wada shaqayntii Kenya sii wadaay duulimaadyada caalamiga ah ee Kenya ee hawadeena mara inta badan waxa ay isticmaalaan hawada Soomaaliya Somalia Airspace si hufan oo hagar la'aan ah waanu ugala shaqaynaa isticmaalka hawadeena laakiin dawladda Kenya waxay safarka ku dhibaan shacabka Soomaaliyeed ee gobolada ka safra oo ay ku khasbaan baaris dheeraad iyo inay sanduuq ku soo maraan wajeer dhinaca shaqo abuurka Soomaaliya waxa ka shaqeeya kumanaan muwaadin oo u dhashay waddankeena oo si sharaf iyo karaamo leh uga shaqeeya dalkeena waanu ilaalinaa oo soo dhaweynaa oo dhowrnaa laakiin dawladoodu ma danayso taas beddelkeeda Kenya waxa ay martigelisaa dad aan ka shaqaynayn danta Soomaaliya dhinaca ganacsiga Soomaaliya waxay suuq weyn u tahay warshadaha iyo beeraha iyo wax soo saarka Kenya laakiin Kenya ma oggola in badeeco uga tagto dhinaca Soomaaliya iska daa ganacsi xuduudda ka gudbay xilli kasta waxa ay burburiyaan
ganacsiga shacabka Soomaaliyeed sida taawarada iyo qalabka isgaarsiinta ee ay ku shaqeeyaan shirkadaha waaweyn ee isgaarsiinta Hormuud iyo Somtel. dhibaato kale oo shacabna inta badan oo ay ciidamada Kenya Defence Force ku geystaana oo gobolka Gedo iyo gobolka Jubbada Hoose iyo gobolka Jubbada Dhexe ka geystaana uu noo gaaray. intaas oo dhan oo jirta intii Soomaaliya ka soo kabatay ay soo kabatay marna ma dhicin in hal siyaasi oo mucaarad ku ah dawladnimada Kenya laga soo abaabulo Muqdisho iyo Soomaaliya si loogu khalkhal geliyo darsi. laakiin taas beddelkeeda Nairobi waxay noqotay meesha lagaga soo duulo Soomaaliya lagaga noqdo heshiisyada lagu gaaro Soomaaliya gudaheeda lagagana soo abaabulo rabshadaha siyaasadeed ee la rabo in lagu carqaladeeyo dawladnimada dhismaysa ee dalkeena. haddaba annagoo ka duulayna rabitaanka shacabka Soomaaliyeed ayaanu si aanu dareenka ula wadaagno danjiraheenna la tashi ugu yeernay safiirka inoo fadhiya Nairobi 29 bisha November hadda dhamaatay. arrintan inaan u yeernay danjiraheenna miyaanu ku degdegnay mise waanu la soo daray? maya maanu ku degdegnay oo waxaa nooga horreeyey dowladda Kenya oo 16 February 2019 sanadkii hore dib ugu yeeratay safiirkeeda. laakiin dowladda Soomaaliya markasta waxay muujinaysay bisayl iyo diblomaasiyad qaangaar. okay haddaan miyaanu la soo daray? maya lamaanu soo darin oo diblomaasiyadda ayaa ku dhisan saying the right things at the right time. inaad waqtiga saxda ah go'aanka saxda ah qaadato. sidaas baanu ula sugaynay waqti rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam wakiilaha alwikaaw aakhiru alcilaaj. dab in la isku dhajiya waa dawada halka ugu dambaysa. sidoo kale abwaankii Saahil Qamaan 100 sano ka hor waa kii inoo sheegay in diblomaasiyaddu tahay rag waxaan ku maamuli aqaan ama ku maamuusi mase inaanu nahay oo tallimo meerta noo tahay. ninkii aniga iga maarmi kara uma muraad yeesho. 3 magacalle xaajada layma marasiyo. qofka waa loo dulqaataa dowladda waa loo dulqaataa diblomaasiyadda waa loo dulqaataa laakiin markay timaado waqtigeeda waa laga jawaabaa. saasaan ugu yeernay safiirka inoo fadhiya Kenya. gabagabadii shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inay ogaadaan in Soomaaliya aanay maanta ahayn Soomaaliyada burbursanay ee ay tahay dawlad madax bannaan oo cod ku leh fagaarayaasha caalamka. sidoo kalena waxaan shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa inay dawladoodu u taagan tahay midnimo, wadaniyad, madax bannaani, qaran, dawlad wanaag iyo ilaalinta sharafta dalka. ma aqbalayno inaanu dib u laabanno. ma aqbalayno inaanu hal dhibic ka tanaasulno awoodda iyo madax bannaanida qarameed ee Soomaaliya sida uu nafarayo qodobka 1 ee dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya faqradiisa 3 iyo sidoo kale qodobka 2 faqradiisa 1 iyo faqradiisa 7 ee axdiga qaramada midoobay oo adkeynaya madax bannaanida iyo in sharci darro ay tahay in la farageliyo dalka. ugu dambayn siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dawladda Soomaaliya siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dawladda Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa inay ka waantoobaan inay danta dalkooda ka hormariyaan danta dalka. xilku waa maalmo, xilku waa meerto, xilku waa maalmo kooban laakiin qarannimadu waa wax weyn. annagu maanta waxaanu siyaasadda ku dhisan kalsoonida iyo sarreynta magaceenna ugu shaqaynaynaa si jiilka soo socda aanay ugu noolaan qaranjab iyo gacmo hoorsi ee ay ugu noolaadaan qab iyo qarannimo. siyaasi kasta oo Soomaali ahna sidaasoo kale ayaanu ku boorinaynaa. waa mahadsan. su'aaluhuna way idiin furan. mudane waa Maxamed Xuseen waxaan ka socdaa telefishinka RTN. mudane wasiir siyaasiyiinta mucaaradka waxay idinku eedeeyeen in arrimaha Kenya iyo Soomaaliya xiriirka ka dhexeeya si xumaanaya inuu ku saleysan yahay arrimaha doorashada iyo sidoo kale ololaha dawladda. marka arrimahaasi xiriir ma ka dhexeeya? midda kale waxaan ku weydiinayaa waa maxay xiriirka Soomaaliya iyo Itoobiya ka dhexeeya Kenya xilligan xiriirka loogu jaray? mid saddexaadna waxay tahay ma ku fikirteen dadka Soomaaliyeed ee Kenya ku nool ee ganacsiyada ku leh iyo dad kale ee qaxootiga ah dhibaato soo gaari karta? waxaan codsanayaa su'aaluhu inay hal noqdaan maadaama la badan yahay. aan
سؤال معدة سؤال هذا صلاته محا إثيوبيا سوماليا علاقات كده وناسين هي تكيني هذا كياني نسافر في لويا سؤال صعب كل يعني الفاضل في سؤال هذا إثيوبيا وأوجيدين تلسكي هراء كتلين شري TPLF يا قردامدي وكوهية يلي بعتدي وكوهية دولة نوضة الصومالية intii jiimkaasi meesha ka baxay oo xaaladiisa hadda ka warqabtaan siduu yahay Soomaaliya iyo Itoobiya waxa yimi Itoobiya hoggaan cusub oo aan faragelinayn arrimaha gudaha ee Soomaaliya oo aan walaaqaynin oo aan fidno abuuraynin oo aanay sabab ahayn meesha laga soo burburinayo laga soo shiray ninka ii xiiraya iyo ninka igu xoqaya waa kala aqaanaa buu ninkii Soomaaliya qofka ilaalinaya aan ina faragelinayn iyo qofka ina faragelinaya dawladda ina faragelinaysa iyo dawladda aan ina faragelinayn aqli indo iyo garaad ayaa shacabku leeyihiin way arkayaan waan mahadsantiin su'aasha labaad runtii waxaa la isku eedeeyay ama carabku ay dawladda ku eedeeyeen in arrimo doorasho ay qayb ka tahay sababta xadiidka ku yimid maajir su'aashaasi waa mala awaal kuna kuma jiro siyaasadda duruufo badan baan soo sheegay waxaan moodayay inaad dhegaysatay statementkaan aqrinay inta wanaag iyo inta samo iyo inta howladaanu qabanay February 2019 ayay iyagu u yeedheen safiirkooda annaguna November 29keedii 2020 waxaa noo dhexeeya sanad iyo 10 bil waxaan isleeyahay waan dul qaadanay dulqaadku waa diblomaasiyaddu kow ka yahay in la dul qaato wanaag badan baan samaynay sanado badan oo diblomaasiyadeed baan marnay haddana waa wada tashi aan ugu yeernay si aan u muujinno waxa socda inaan dhaqaale ka ahay hal arrin baan kuu sheegay in 10 musharax intay Nairobi ka soo baxaan xamar yimaadaan ma doorasha ma campaign ba waa khalkhalgelin amniga iyo shacabka iyo midnimada iyo dalka annagu ka waran haddii aanu 10 musharax حمر كدر نو ديارات كسارنو ونيروبي ودقو كينياتيا هذا غلط أنا مالني يعني كان بدل أربعة قحطية ولا كده حلقان isku soo beegay xeerinta safiirka Kenya iyo arrimaha doorashooyinka dalka actually aan ku saxo cidna ma aan cayrin waxa la yiraahdaa la tashi safiirkeena la tashi waan ugu yeernay safiirkoodana waxaanu u sheegnay inuu la tashi la soo sameeyo dalkeena waana xeerarka diblomaasiyadda ay qayb ka tahay marka aad qabto wax aad dareen qabto aad leedahay waxyaabahaas oo dhan baa jira si aad u muujiso oo inuu safiirku dalkiisa ku laabtaa oo yiraahdo dawladdii aan idin matalayay waxaas oo dhan bay qabtaa laakiin wax kale isku deegan ma jira wasiir TV-ga Som News wari waa bari ma ka fikirteen dhibaatada ka dhalan karta qaxooti Soomaaliyeed oo aad u fara badan ayaa wadanka Kenya ku nool arintaas idinkoo arintan aad ku degdegteen in safiirkii Kenya ee Soomaaliya u joogay inaad wadanka saartaan kiina u yirtaan waxaan u maleynayaa inaad si fiican ii dhageysanaysay musharaxiintuna hadalkoodii shalay waxaa ku jirtay inaan cidda baahani Soomaaliya oo kaliya tahay cidda baahani maaha dalkeena oo kaliya qaxoontigu waxay ku joogaan shuruuc caalami ah waxay ku joogaan Convention of Refugee Affairs Status 1951 ayay ku joogaan Kenya cid taaban karta iyo cid la hadli karta ma jirto waa convention la isla yaqaano dunida oo ah in la magan geliyo qaxootiga laakiin waxa wax ka badan baaba naga dhaxeeya Kenya ilaahay baa wuxuu nagu wada abuuray hal meel ilaahay baa wuxuu nagu wada abuuray hal buqcad inaan wada noolaano oo daris wanaagsan ahaano oo wada shaqeyno sida wadamada kale baan wada shaqeynayno Djibouti dhibaato kuma qabno Ethiopia dhibaato kuma qabno laakiin maalin kasta fidmo inay ka timaado Kenya macnaheedu ma aha inaad iska aamuso ilaa intee leeg baad aamusnaanaysaa waxaan kaloo kugu darayaa danihii aan soo sheegay Kenya way ka yaaleen halka gacmo isdhaafo baa galadi ka dhalata intaraska dawladuhu wax hal dhinac ka socda maaha waa inay labada dhinacba wada ilaashado waxaanan aaminsanahay madaxda Kenya inay arrintan ku baraarugi doonaan oo ay wax ka bedeli doonaan siyaasadooda wixii arrimihii aan ka hadlay waxaa ku jirtay Kenya ba inay intaas oo darooda waaweyn Soomaaliya ku leedahay dalna mar rabo danihiisu inay xumaadaan annagu ma rabno inay xumaadaan laakiin waxaan rabnaa in faragelinta la joojiyo in fadqalalada la joojiyo in abaabulka la joojiyo inta haddii la joojiyo we are brothers
ilaahay baa nagu wada abuuray gobolkan waananu jecelahay inaanu wada shaqayno oo aanu nabad iyo xasilooni ku wada noolaano hal cadow baan leenahay halkaa cadowna meel uga soo wada jeesa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Kenya waxay sheegeen in baraha bulshada ay ku arkeen kulanka dowladda isla markaasna ay la yaabeen yaani habboonayn in go-aanka la qaado ka hor la wadaago dowladda Kenya dowladda Soomaaliya waxay ku sheegaysaa inay martay channelkii saxda ahaa ee diblomaasiyadda waxaa arrimahan ka hadlaynaa waa consent haddii la garnaqsanayo maaha macnaheedu in la isdilayo haddii la garnaqsanayo macnaheedu maaha in la kala tegayo waa la garnaqsanaya waxaasaa dhibaato jirta aan iska dayno waa la wada hadlaya laakiin wada hadalkay qayb ka tahay si loo wada hadlo waa inaad consenskaaga iyo waxa aad adigu qabto aad leedahay waxaa kow laba saddex afar imagine markii magaalooyinkii laga baxay gobolka habeenkii baa la soo galay markii ciidamada Kenya ka tagay iyadoo aan cid lagaga tegin iyadoo aan cid lagu ogeyn iyadoo aan la dowladna la wargelin qiyaas bal shacabka Soomaaliyeed ee markii hore dugsanayay islaha ama soo baydin laamaysa waxa ku dhici kara waxaas baa laga aamusi karo oo reesa dhaxdo soo weydii waxay ku dhacay haddii gebi ahaan Kenya la iska fasaxo maxaa hortaagan oo cilaaqaadkooda la jaro diblomaasiyadda waxa la yiraahdaa tinta mucaawiye ayay ku dhisan tahay markuu qofku adkeeyo waa la dabciyaa markaad adigu adkaysana waa inuu dabciyo lama jaro haddii la jaro cawaaqib xumay keentaa mana rabno in cilaaqaadka la jaro laakiin waxaan rabnaa in cilaaqaadku noqdo is-ixtiraam ku dhisan shuruucda caalamiga UN Charter international laws iyo dastuurada dalalka la ilaaliyo madax bannaanida iyo wadajirka iyo nabadgelyada la dhowro deris wanaagga laga wada shaqeeyo nolosha ka fiican gobolkan geeska Afrika waxaan rabnaa inuu noqdo gobol barwaaqo ah oo tanaada oo dadkiisu iskaashadaan ma rabno gobol khilaaf aad iyo aad baa umahadsantihiin maalin wanaagsan